يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة الرحمة وفرقة العذاب. marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa marti sharafta uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisa. waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdigiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed halkan isugu yimid. intaa ka gadaal kelmadayda waxaan uga faa'iidaysanayaa ummadda Soomaaliyeed walaalayaal saa ogtihiin waa burburtay. qarannimadeedii iyo jiritaankeedii iyo dadnimadeedii iyo sharafteedii in badan baa halgan loogu soo jiray arrintaasi inay dhabowdo. waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala madaxweynaha dowladda federaalka oo maanta inoo yimi badan aan sugaynay inuu noqon doono illiqaadkii iyo meeshii rasmiga ahayd ee Soomaali dowladnimadeedii iyo qarannimadeedii iyo sharafteedii ay ku soo noqon lahayd. waxaan u dardaarmayaa shacabka halkan isugu yimi, haddaan doonayno inaynu hagaagno, inaynu karaamadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed soo noqoto, waxaa lagama maarmaan ah maadaama aan dambownay tacaddi badan iyo dulmi badan aan gallay inaan ilaahay u noqonno subxaanahu wa tacaala. watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun. kelmadda rasmiga ee aan taabanayo waxa weeyaan ummaddaani waxay wax ku noqon kartaa waa inay qabsadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cariggiisa sida nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. waxa weeyaan kulanka iyo isumaatinka iyo midnimadu waa naxariis weeye. kala tagga iyo waxa weeyaan kala fogaanshuhuna waa cadaab. waxaan ummadda u dardaarmaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed, inay dowladda curdinka ah ee dhowaan u dhalatay ee sano jirka ku dhow oo shalay farxadda iyo waxa weeye sacabtunka lagu soo dhoweeyey inaan lagu ragaadin oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda laga ciyaarin oo waxa weeye siyaasad qabali xambaarsan iyo siyaasad dan gaara xambaarsan inaan lagu ragaadin ee ummaddan sharafteeda iyo dadnimadeeda lagu soo celiyo si mudnaana. waxaan leenahay hal kelmad baan ku soo ururayaa. markaan ummad dooranno oo aan dooranno madaxweyne, waxaan xasuustaa madaxweynaheed dowlad goboleedka Puntland Professorka Cabdiweli orodkii iyo ololkiina ka dhacay waa ogeyn. tii labaad oo dowladda mudane Farmaajo madaxweynaha federaalka waa ogeyn. yaynaan ku bedelin waxa weeyaan wax aan loo baahnayn. dhammaanteen shacabku waa inay noqdaan kuwa taageero u ah dhinac istaagan shaqada. waa in laga fogaada dabadhilifka danta gaarka wata ee ku gabanaya qabiilka iyo siyaasadda oo hogaaminaya ummadda hogaaminaya dib ku hogaaminayo. waxaan leenahay dowladda gabanta ah oo inoo dhalatay oo mustaqbalka soo celi doonto ilaahay midii hagaagta Allah ka dhigo, midii wanaagsanaata Allah ka dhigo. madaxweynaha ilaahay subxaanahu wa dariiqa xaqa ha tusiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha ummaddan rabitaanka ku jira Allah ha garansiiyo. ummaddan qalbigeeda farxad Allah isu mariyo. kuwii isu soo hilooba oo isu yimaada Allah ka dhigo. kuwii qarannimada loo soo celiyaa ka dhigo. inta hawshaa ku hawlana ilaahay asbaab ha uga dhigo.
وإذن خير وإذن رجعنا يا آديات بانو ناسنتي الله إنه كوافع آياتها قرآن كآية وعدك الشيخ أحمد حوالي قاري الله إنه كوافعه مدن مدح وينه مركي حمر لو دورتي waxa aanu ka maqli jiray baraha bulshada waxay ahayd arfarmaajo ay geeya maantay maalinta timi 7 bisha ilaa iyo maantay ilaa aad ka tagayso dadweynaha reer Puntland dhamaantood waa farmaajaysan yihiin haddana waxaan ku soo dhaweynayaa duqa magaalada Qarbo inuu kelmadiisa ka yiraahdo fariita badar waqtiga hal la ilaasho soo koobo بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دول goboleedka Puntland mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Cabdullaahi Cali Gaas xubnaha golayaasha dawladda federaalka iyo xubnaha golayaasha Puntland isimada culimada aqoon-yahanka ganacsatada haweenka dhalinyarada qobrajoogta saxaafadda ciidamada qaranka ee amniga iyo dhammaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay حفلة بلارا وعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مدن مدحوينه ومرت hortada taagan waa dadweynaha magaalada Qarbo ee xarunta dhaqanka oo intii baryaha ba ku sugaysay waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi xaaran waxa aad iyo aad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi xaaran waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad maanta dhex taagan tahay dadkaagii iyo dalkaagii iyo xaruntii dhaqanka sida xamaasadda badan iyo kalkacalka ay ku dheehan tahay ee ay bulshada reer Qarbo ku soo dhaweeyeen waxay ka marakacaysaa qadarinta iyo xushmadda iyo sida ay idin rabaan ama ay ku heelan yihiin haddii la yiraahdo mudane madaxweyne magaalada Qarbo waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu faca weyn ee Soomaaliya waxaana degmo ahaan la aasaasay 1930kii xilligii Talyaanigii ayaa halka la aasaasay sidaa daraadeed waxay caan ku tahay xagga waxbarashada ayay caan ku tahay waa garan karnaa waxa taariikh soo yaal ah oo runtii aan la ilaawi karin waxa halka magaalada Qarbo badanaaba ka kici jiray ama dadka wadanka hogaami jiray sida ama madaxweynaha noqotay ama ra'iisul wasaarayaal noqotay ama wasiiraha noqoto ama dibitaat ha noqday waxa ahaan jireen meelihii dawladnimadu ay ka soo ifixi jiray sida leegadii oo kale waxa uga mahad celinaynaa dawladda federaalka runtii xilligii xumay oo abaartii 2016kii doorkii ay ka qaadatay xilligii la isugu soo guuray gobolkan bari oo ay runtii gacan mugle ay ka qaadatay dhinaca abaarta ama biyadaan ha noqoto ama ha noqoto livelihood ha noqoto intaba aad ayaa uga habaceen taariikhooda waxay tibaaxaysaa astaanta u tahay reer Qarbood inay yihiin dad wadaniyiin ah nabad jecel maamul soo yaal ah iyo dawlad yaqaan ah ayay u tahay astaan mudan madaxweyne Qarbo waxa intaas u dheer oo rabbi ku munaystay cimilo iyo jawi fiican waa dhul daaqsimeed qurux badan xilligii ka maamahay Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan oo lahaa dhul xagee ugu qurux badan wuxuu yiri afartii duulood oo Qarbood ma ku darteen afartii duulood oo Qarbood maanta waa meesha ay joogno iyo dooxooyinka ay halakan ka kala rogmaan mudane madaxweyne ummadda ku nool magaalada Qarbo waxay habeen iyo maalin si dhow ula socdaan horumarka ballaaran ee ay dawladda adiga ra'iisul wasaare khayr hogaamiso muddadii gaabnayd ee aad xafiiska joogteen waxa gaartay talaabooyin la taaban karo sida dhinaca siyaasadda oo caalamka ah kobcinta dhaqaalaha isku tashiga ka qaybgalka taakulaynta abaaraha sanadii la soo dhaafay la dagaalku musuqmaasuqa xoojinta amniga hawada Soomaaliya oo lagu mahadiyo oo dhawaan soo wareegtay oo muddo 27 sano ah ina ka maqnayd intaas waxa weeye waxyaalaha la taaban karo oo qabatay dawladdu ayay ka mid tahay dhammaan muslimiinta goobta joogta madasha waxa sharaf inaan halkan ku soo dhaweeyo iyadoo booqashada macna weyn iyo qiimo badan ay u leedahay Puntland guud ahaan Soomaaliya waxa xusuus mudan in reer Puntland ay door weyn iyo kaalin firfircoon ka soo qaateen dib u astaynta dawladda Soomaaliya intaas waxa muujinaysa hubaalna ka dhigaysa sida ay Soomaalidu si dhow ula socoto iyadoo maanta reer Puntland ka go'an tahay in kaalin weyn ay ka qaataan dadaalka loogu jiro sidii ay Soomaaliya mar kale maqaan sare iyo magac uga dhex yeelan lahayd bulshada caalamka
mudan madaxweyne waxaa rabbi ka baryaynaa in dawladdu ay noqoto tii soo celista sharaftii karaamadii dadka iyo dalka kana qayb qaato rabitaanka ummadda dadka reer Qardhood iyo maamulku waxay diyaar u yihiin kana go'an hiigsiga iyo aragtida in la helo dawladnimo Soomaaliyeed oo hanata wax kasta oo dadka dalka iyo diinta wax u ah mudana madaxweyne aad iyo kuga mahadcelinayna insha Allah waxaan rajaynaynaa booqashadaada aan noogu tii maanta inaysan noqon maalintii koowaad ee ay noqoto mid muddo badan aad ku soo laabataan idinkoo ka heli doona magaalada Qardhood jawigeeda iyo meesha ay ku taal waxaan leenahay mudana madaxweyne soo dhawow waddanka ku soo dhawow aad iyo aad baa umad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay duqa magaalada Qardho dadweynaha wafdiga inoo yimi madaxweynaha dawladda federaalka iyo wafdiga la socda madaxweynaha dawladda Puntland iyo wafdiga la socda dadweynaha sharafta loo halka noogu yimi waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa inay noo cudur daaraan haddii maanta martiqaadka iyaga halka rahaa dhaliila ka jireen oo aan wax gaabinay in la ka raali ahaado haddana waxaan ku soo dhaweynayaa codka bulshada gobolka si uu jeediyo Dr. Ahmed Abbas Shaacur السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة سيدي هوري لو شيغي waxaa loogu talagalay in lagu maamuuso soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudane madaxweyne magaalada Qardho waxay kugu soo dhaweynaysaa hore horaan hoggaanka siyaasadda iyo maamulka oo uu mudan yahay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Professor Cabdiweli Maxamed Cali waxaa kaloo kugu soo dhaweynaysaa hoggaanka dhaqanka oo uu mudan yahay boqor burhaan boqor muuse mudane madaxweyne aad iyo aad ayay fursad u tahay inaad maanta joogto magaalada Qardho waxaan ku cadaynaynaa sidii shacabka Soomaaliya oo u soo banbaxay taageeradaada markii lagu doortay mansabka madaxweynaha Soomaaliya inaanay isdhimin ee ay sideedii tahay haddii aanayba wax ku sii kordhin sidaad ku aragtay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan caasimadda Puntland Garowe ay ugu soo banbaxay soo dhaweyntaada heerka soo dhaweynta ee aad kala kulantay magaalada Qardho sida aad ku arki doonto meelaha kale aad sii mari doonto waxa way taageerada dadka reer Puntland waxa way waa aad bay u sareysaa aad bayna heelan kugu yihiin inay ku garab istaagaan mudane madaxweyne waxaad ku kalsoonaataa marka laga eego dhinaca sharciyadda dhinaca dadaalkaaga qofeed ee mas'uuliyadeed inaanay jirin garabyo siyaasadeed oo Soomaaliya iyo faragelin caalami ah oo ay dadka Puntland ku doorsanayaan hoggaankaaga mar kale waan ku celinayaa dadka Puntland ayagoo mar walba sharciyadda qaranka ku dhaadanaya waxqabadkaaga iyo dadaalkaaga waxaad ku kalsoonaataa kuna cadaynaynaa inaanay jirin cid ay ku doorsanayaan hoggaamintaada mudane madaxweyne Soomaaliya waxay ku sugan tahay xaalad halisa qof kasta oo aan himilo adag lahayn aan hiya adag lahayn gaarsiin kara heer quusa oo uu is oran karo Soomaaliya maba soo kaban karto dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaa bilan fursado aad iyo aad u qurux badan oo haddii laga dhabayo la gaari doono horumar degdeg la gaari doono oo dad badan ku noqon doona filanwaa mudane madaxweyne doorashadaadii waxay ka mid tahay idadiilada saddexda ummadda Soomaaliyeed u dhalatay mudane madaxweyne marka la fiiriyo xaaladda cimilada ee adag
iyo khayraadkii dabiiciga ahaa ee dhulka oo gabaabsi laga dhigay soomaaliya maanta waxaa loo baahay inay ku baraarugto inay lagama maarmaan yahay horumar dhaqaale oo koboc dhaqaale xambaarsan su-aasha isweydiinta u badan la isweydiinayo mudane madaxweyne waxa weeye soomaaliya maxay mudnaanta ay leedahay oo ay maanta ku higsan karto horumar dhaqaale waa maxay dhinac walboo laga fiiriyo mudnaanta soomaaliya haysato waa mawqica juqraafiga ah iyo dadka kartida leh ee ilaahay u dooray mawqica juqraafiga ay soomaaliya taalla iyo kartida dadkeeda hadday ku dhaadato labadaas arrimood hadday ka wada faa'iidaysato waxay haysataa fursad ay ku horumari karto mudane madaxweyne soomaaliya waxay ku taallaa mawqic juqraafi ah oo isku xira khaliijka carabta iyo guud ahaanba aasiya yurub iyo africa sidaa darteed waxaa weeye marin muhima oo isaga gooshi karaan ganacsiga dunidu iyo khayraadka bini aadamku isdhaafiyo mudane madaxweyne mawqica juqraafiga ah ee soomaaliya ku taallo waa mid nasiib gaara oo alla u gartay dad badan oo kaasoo kale haystana waxa weeye maanta waxay ku nool yihiin baraare markaa mudane madaxweyne isma bilo sidiisaba mawqica juqraafiga waxaa bila hanaanka siyaasiga ee qaran hanaanka siyaasiga ee qaran waxaan ula jeednaa mid loo dhan yahay mid aan si gaara cidi u sheegan mid aan si gaara cidi u sharaysan ee la wada shiinsado oo la wada leeyahay oo lagu wada faano lagu gedfiyo mudane madaxweyne haddii ay soomaaliya ka faa'iidaysto mawqiceeda juqraafiga ah waxaa hubaala in horumar la gaari karo muddadii sanadka ka yarayd ee aad xilka haysay iyo waxaa la fili karaa in 3 sano soo socota ee xilhayntaada u dhiman xilhayntaada koowaad u dhiman in lagu guulaysan karo in dowladnimo oo adag oo aan dib u laaban mudane madaxweyne dadka reer qareed iyo ummadda Soomaaliyeed waxay ku rajaynaysaa khayr oo dhan bay ku rajaynaysaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay dr axmed cabaas shaacuur halkan maanta waxaa ku sugan mudane madaxweyne cuqaashii gobolka iyo isimadii gobolka oo dhammaantood jeclaan lahaa inay hadal qaataan hase yeeshee waktiga oo kooban dartiis baanu aad iyo aad ugu cudurdaaraynaa waxaan u yeeraynaa hadda nabadoon maxamuud siciid aw muuse si uu cuqaasha magacooda ugu hadlo hal yatafadal محمود سعيد waayahay waxaan u yeeraynaa marka nabadoon maxamed aadan cali xangaag بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله محمد وصحبه وسلم sidii loo sheegay xafladatan sharafta leh oo lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdiga la socda oo uu ka mid yahay madaxweynaha Puntland cabdiwel maxamed cali gaas dhammaan iyo wafdiga la socdo wasiirada iyo haddii qadaray baarlamaanka iyo haddii qadaray waxgaradka la socda kulli waa soo dhaweynaynaa waxaan u sheegaynaa madaxweynaha maalintii la doortay
oo iyadoo isagoo aan la aqoon ilaahay amarkii bal carruurtii yararkayd baa ilahay afkoodii wuxuu ka riday liibta guusha yaa leh farmaajo wax baray ma naqaan annagu uma sheegin waadinka iyaga annagu uma aanaan sheegin waxa kaloo jirta weli haddeer waxay tirsanaayeen waxayna leeyihiin awoowow ama aabow goormuu imaanayaa farmaajo oo aad waxaan u jeclaan lahaa horta mar gaara iyagu inay arkaanba dadka yaryar hor dad inay arkaan oo bartaan maxaa yeelay himad weyn bay u hayaan midda kale waxaan leenahay farmaajo waa ku soo dhawaynaynaa aad iyo aad baanu kugu faraxsannahay imaatinkaaga iyo haddii qadar booqashadaada 8 bilood oo aad haddii qadar aad ahayd haddii qadar madaxweynaha oo maanta aad soo gaadhay sidaan isu hay meel barru imaanaya masaadan buu imaanaya oo maanta amarkii alla ka dhigay madaxweyne waxaad soo gaadhay oo ku soo degtay magaalada madaxda nugaal garoowe hadda wixii sharaftii aad kala koontay waa xusuus oo maqashoonahay waana ognahay waana malaynaynay haddana waxaad timi magaalada ku xigtay qardhaad timi haddee waxay la tahay wax ku nin maanta kaaga sheekaynayaa ma jiro waxaan malaynaynaa buntland horta dhan waa isku wada calool waana mid mucaarad ma leh wax kale oo laga boqo ma leh canaasiirta haddii qalaye haddii qala qararkaa ku jirta oo la yidhaahdo haddii baahid maayey shabaabka maahaane waxaad ka baqaysaa ma jiro suuqaad maraysaa waxaad maraysaa dooxadaad maraysaa meeshaad doontaa arki kartaa waxaa lagu ballan qaadayaa ballan nabadgelyo iyo sharaf iyo wanaag baa lagugu soo dhawaynaya waxaanu kaloo madaxweyne ku leenahay dhulka soomaaliya sida odayaashii horeba u sheegeen waxyaalo badan baa ku jira oo dadku haddii baahid maayeen wuxuu leeyahay nin wanaaggu u daran yahay oo neceb wanaagga oo xumaanta jecel waxaanu haddeer maqalshoonnay kuwa la leeyahay waxay la shaqaynayaan oo magac leh oo haddii wasiiro iyo meelo sare saaran oo meelo kale ka shaqaynayaan dowladda li ku yihiin oo bayaalo muxuu doonayaa ninkaas maxaa ka sarigi doonaya marka waxaanu leenahay hadalka anigu in badan kuma lihi madaxweyne waa ku soo dhaweynaa adiga wafdigaaga madaxweynaha haddii qadlayey kula socda oo haddii qadlayey buntland hadda isaga waa magaaladiisi isaga adigana ku waa magaaladiini labadiinaba ama wafdiga waa idinla socdaa haddii laakiin wuxuu ku yahay wuxuu kaa badsaday marmarkeeda iyo araggeeda uu kaa badsaday saasuu kugu yahay inuu isagu kugu xurmud ku iyo ku horgalo intaasun baan ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاقل محمد هذا وما سيهي وعاد يا آذان وقفر أحسن الله هدان هاي تدوينها كنا المقالة قرضية دقامة بوتلان با إن وفدك مدحوينها فدرالك مدحوينها دولة فدرالك وفدك إيسا إلي كم تهي هبا محمد هبا نورا لما هو عن كأسرين إن شعب كالورا waayahay haddana waxaan ku soo dhawaynayaa hiba waa maqlaysaa sacabka waa u jeedaa haddana waxaan ku soo dhawaynayaa dadku aad buu u fara badan yahay laakiin wakti ma jiro waxaan ku soo dhawaynayaa suldaan maxamed cabdilaahi cartan suu hadalkiisa halkan uga yidhaahdo falyatafadal عبد الله عرسن به waayahay hadalkii waa sii wadanaynaa ها سودان كبير سودان وقت عبد محمد حق صومر سودان ها هي عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka hore ilaahay baa mahad leh halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland cabdiweli maxamed cali gaas boqor burhaan boqor muuse
isimada kale odayaasha dhaqanka cuqaasha culimaadudiinka gabdhaha dhalinyarada kullu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanka bacdi run ahaantii maanta maalin farxadeed weeye waxaynu fursad u helnay in madaxweynihii federaalku uu puntland ina ku soo booqdo sidaad horeba u sheegteen waxaan ku soo dhawaynaynaa farxad waxaan ku soo dhawaynaynaa damaashaad kal iyo laaba anigu waxaan ka mid ahaa runtii wafdiga madaxweynaha oo garowe ragga ka soo raacay dadweynaha reer qardhood madax iyo majaba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa soo dhoweynta qardhana run ahaantii caan bay ku tahay soo dhoweynta iyo martiqaadka iyo soomaalinimada iyo dhaqanka intaba waxaan maqraanti ka nahay muddo hadda sanad aan wax badan ka badnayn halkan waxaad ku kulmiseen soomaali oo dhan isimadii dhaqanka soomaaliyeed oo dhan baad halkan ku kulmiseen in aad maantana madaxweynihii waddanka halkan ku soo dhowaysaan meeshaan quruxda badan ku casuntaan weji furan iyo gacmo furan iyo soomaalinimo aad ku soo dhowaysaan aad iyo aad baan idinka hambalyaynayaa aad iyo aad baad u bahansan tihiin waa waxaad dhaqan u leedihiin run ahaantii taariikhdaa qori doonta annaguna kal iyo laab oo idinku garab taagannahay garabkiinnaanu nahay waxa isu keenay runtii waxa weeye waxa u weyni waxa weeye islaamnimada ka sokow waa soomaalinimada maanta ifafaala dawladeed ifafaala qarankii soomaaliyeed ayaa muuqda sida aad u sheegteen madaxweynuhu waa la khayraystay khayrkii aynu ka ifaalayna waynu ka helay maantana horumar ayaa muuqanaya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inta ina ka dhimanna in ilaahay uu inoo suuro geliyo in ilaahay qarannimo soomaaliyeed oo taaba nabadgelyo taama inuu ilaahay inu ku wada kulmiyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay waxaan uga baryaynaa nabadgelyo caama mid khaasana ilaahay waxaan uga baryaynaa dadweynaha reer karkaar guud ahaan puntland khaas ahaan gobolka karkaar degmada qardho waa idin ducaynaynaa halkaa ka wada guri boqortooyo weeye waa maxaanku idhaahdaa degmadii ama gobolkii hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed weeye hambalyo baan idin leeyahay gacmo furan madaxweynahana waxaanu leenahay madaxweyne allah ku barakeeyo soo dhowow puntland ma dhammayn kartid bil iyo 2 toonna laakiin inta karaamka ah waad ka gaari doontaa boosaaso iyo ceel daahir iyo anigu wafdigaan ka mid ahay oo maxaan ku dhahaa waa sii wada socon doonaa dhammaantiin guul baan ilaahay idinka rajaynayaa soomaali meel kasta ay joogto waktigu uu yaro gaaban yahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu suldaan maxamed cabdullaahi cartan waa mahadsan yahay dadweynaha ku nool magaalada qardho iyo dhammaan guud ahaan puntlandba waxay aad iyo aad uga helaan oo u xiiseeyaan hadallada rag badan oo ay saaxiib la yihiin oo uu ka mid yahay salaad cali jeelle oo uu ka mid yahay tarsan oo hadda inala jooga fursad uma hayno inaanu maanta hadalkooda siino laakiin aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddana waxaan ku soo dhawaynayaa inuu erey kooban yidhaahdo oo soo dhoweyn ah siyaasigeenna cali cabdi awaare falyatafadal cali 2 daqiiqo weeye 2 daqiiqo keliya بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوينها دولة جولات كبونتلان مدن عبد الولي محمد علي قاس بغر برهان بغر موسى مروضة كواد مدحوينها بروفيسور هودن سعيد مرتي شرفتا سنة الردا حلبان ردا وسير ردا labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaanada iyo wasiirada labada gole ee dawladda Puntland salaadiinta cuqaasha waxgaradka nabadoonnada indheergaradka ururada bulshada dhalinyarada haweenka bahda saxaafadda ciidamada amniga dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib mudana madaxweyne
waxaa sharaf u ah gobolka karkaar inay maantay fursad u helaan inay kugu soo dhoweeyaan magaalada taariikhiga ah ee ku jirtay 27 degmo oo ugu horreeyey 1930kii la qoondeeyey ama la ictiraafay mustacmaradii markaa degmo taariikheedna ah sida yaasiin cumar dheerana haddaayo uu sheegayey aad noqotay madaxweynihii afraad soo mara sidaasoo kalena hadda ra-iisul wasaareyaal badan oo uu ugu horreeyey ra-iisul wasaare cali maxamed geedi iyo ra-iisul wasaareyaashii kale oo ka dambeeyey cabdiweli sheekh axmed iyo cabdiweli maxaa cali gaasba ay soo mareen aad iyo aad baan kugu soo dhowaynaynaa si kal iyo laaba tani waxay fariin adag u tahay in dadka gobolkan iyo degaankan deganiba inay ku garab taagan yihiin inaanay jirin cid sheegan karta ama ku hadli karta ama mateli karta magacooda waxa weeye taageero 100% buuxda ayaa dadka deegaankani iyo sida aad arkayso kaliya laabta ay ku soo dhaweeyeen ayay u tahay soo dhawow mudana madaxweyne noqon mayso socdaalkaaga koowaad waxaan rajaynaynaa inay noqoto marar badan oo inta aad joogtaba in aad soo booqan doonto insha allah mar koowaad iyo mar labaadba soo dhawow mudane wacalaykum assalaam waraxmatullah waa maasan yahay siyaasi cali cabdiwaare waxaan hadda ku soo dhawaynayaa xildhibaan ku hadlaya magaca wafdiga noo yimi ayaan ku soo dhawaynayaa xildhibaanku maa magaciisa carab ciise carab aadam ciise xuseen carab ciise ninkaasaa warqadii ka بسم الله الرحمن الرحيم مركب روحنا سلام يا مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية فرماتشو مدحوينها دولة دولتك بوندلاند عبد الولي بقر برهان بقرنا سلام يا مدحنا كلا مش شوكتا لكن سيقولني وحنا سلام يا كرقرو ما أنت كل يوم وقردسنا يا بالمريض لكن كنا نقول ما أنت وفر مع جيزنتا أدبر ما سنتين وحن دوني هنتي إن آدي كوهم بليايو أنا هركن وحنمي أنا مدحوينه إن الله سعد سقوا رئيس الوزراء الصومالية كوي تبنكي يلا بي تبنكي وحا موقدر هنتي إسبدل وين بوندلاند هرمر وين أما إربور هالنقطة أما لامية هالنقطة أما الرقالة هالنقطة هنتي إسبدل وين بموقدر taasna waxaa keentay runtii wadannimadiina iyo isku tashigiina marka waa idin hambalyeynayna anoo ku salaamay magaca baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya iyo labada aqalba waxaan leenahay idinkaan idin shaqeynaa insha Allah wixii annaka waajib nagu aan waan ka soo baxaynaa maanta laakiin waxa way waxaan tusteen Soomaalinimadu waxay tahay dal jacaylku wuxuu yahay dawlad jacaylku wuxuu yahay runtii iyo runtii annaka waajibkayga waxa way inaan idin la shaqeyno idinna adeegno marka waa salaamantiin insha Allah waa soo noqonaynaa hambaliyada leey kulligiin waa maasan yahay xildhibaan carab ciise haddana waxaan ku soo dhaweeyahay guddoomiyaha gobolka karkaar si uu ugu soo dhaweeyo boqorka بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية الصومالية فدرالكا مدحوينها دولة قبلتك بنتلان دمان قولياسا برلمانكا أقل كسرية أقل كهوسي فدرالكا دمان حكومة بنتلان iyo baarlamaanka dhammaan marti sharafka isugu yimid xafladan sharafta leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqti badan baynu fadhinaa hadal badan inooma harin murtidiisa waa kala dhuuxi doonaa intii badanna hadda waa kala helay waxaan rabaa mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo puntland sida lagugu soo dhaweeyey iyo sida lagaaga jecel yahay iyo sida lagaaga ducaynayo
iyo sida lagu garab istaagay intaba waad aragtaa gobolka Karkaarna maanta si fiican buu kuugu muuqdaa waa ku abaalgudeen waajib fiicanna waa guteen adigana taadu aday kula jirtaa wixii aad ugu abaalgudi lahayd iyo sidaad uga qayb qaadan lahayd iyo reactionka ka bixin lahayd Puntland aday ka sugaysaa mudane madaxweyne meel kastoo aad tagto gobolka Puntland sidaa iyo si la mid ah ayay ku soo wada dhaweynayaan ama qalbiga kuugu hayaan adigana waxa laga doonayaa Soomaali weyn oo midaysan inay saa noqoto haddii ilaahay danka ka dhigo haddana waxaan ku soo dhaweynayaa adigu yar haddana waxaa lagu soo dhaweynayaa beeldaaje maxamed axmed beeldaaje axmed hal iyo toban beeldaaje hal daqiiqo dhaqso salaan keliya baan kaa waqti ma jire بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدحوينها دولة بنتلاند عبد الولي محمد علي قاس بقر برهان بقر موسى بقر يوسف اسم ملكله لما عقاشة إلى رمضان أو يهنيتا بهذا صحافة ورفض بشرى كلا دوان وعن السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي waxaa madaxweyne annagoo shucuurtayada iyo dareenkayaga daaranahay reer Puntland heer maamul iyo heer shacab iyo heer dhaqan kulliba waa kuwaan balyanaynaa soo dhawow baanu ku leenahay waana ku soo dhawaynaynaa dawlad iyo shacabna waa ku barbar taaganahay waana kula shaqaynaynaa cadaaladda iyo horumarkaana deeqa xilnimo wada deeqo ilaa cadaaladda iyo horumarka na gaarsiiso baana deeqda wixii qabyo ah waxaanu leenahay allah inala qabto allah inoo qabto wixii qabsoomayna allah inoo barakeeyo wabillahu tawfiiq assalaamu calaykum waa mahadsan yahay beeldaajuhu codsi ka yimid dadweynaha oo ay aad iyo aad halli uga noqdeen waxay weeye laba eray inaan siino salaan cali jelle falyatafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوينها دولة بوتلاند إيه مروديثة شرفت بدن بقرك Soomaaliyeed ee maanta xarunta dhaqanka aan ku soo salaamno ku soo booqanay marti sharafta kala duwan oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano heer federaal iyo heer dawlad goboleed gabdhaha sharafta badan oo heer Qardho iyo dhalinyarada kale iyo waxgaradka iyo isimada dhammaantiin iyo bahda saxaafadda waxaan idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii maanta sharaf weyn ayay ii tahay inaan xarunta dhaqanka taariikhiga ay dadweynaha reer Qardho ay khasab kaga dhigaan in laba kelimad la siiyo aad iyo aadaan ugu faraxsanaa maxaa yeelay meel caadiya ma ahan maxaa yeelay Qardho waa meel taariikhiya waana meel mataqaanaa dhaqankii Soomaaliyeed oo yaallo waadna arki kartiin hadda geedka aan hoos joogno quraca mudana madaxweyne maanta adiga iyo wafdigaaga aan ka mid ka ahay
waxaad halkan kala gadoomaysaa ood aragtaa waxa ugu yar oo siyaasad laga faa'iida waxaa la yidhaahdaa moral support qofku inuu niyadda kuu dhiso hase ahaatee taageero lixaad leh oo dhinac walba leh ayaad horta kala kulantay adiga iyo wafdigaaguba ama aan kala kulannay puntland puntlandna waa markii kuugu horraysay ood soo booqatay marka waxaad fahmi kartaa reer puntland waxa soomaaliya ka maqanay og yihiin waxa la haayo iyo waxa maqan waa kala gara'ayaan marka sharuud la-aan ayay kugu taageerayaan ma ahan dadka wax kaa rabo haddaadan waxaasi siin iyo haddayna saas ahaan sharuudaha kugu xidhaa kuma jiraan iyagu horta maxaa yeele waxay og yihiin geeska africa dowladaha igad iyo african union qaramada midoobay jaamacadda carabta iyo ururada islaamka ururka caalamiga oo islaamka aan ka tirsannahay intaasba xaquuqdi soomaaliyeed inay ku maqantay og yihiin mudana madaxweyne waxay rabaan marka xaquuqdaas inaad soo celiso dalka gudihiisa markaad nabadayso oo dib u heshiisiinta aad dhammaystirto ayay waxay rabaan kaalimihii qaramada midoobay aan ku lahayn waad ogtaa 15 wareega goor noogu dambaysa lama yaqaan waxaasoo dhan inaan soo ceshanaa la rabaa marka runtii waxaan leeyahay hambaliyo soomaaliya ha noolaato boqortooyada qardho oo dhaqanka soomaaliyeed ha noolaado soomaaliyana waxaan u rajaynaynaa guushaasna puntland ayaa laga rabaa inay madaxweynaha kor iyo hoosba ay ka ilaaliso idaa laga rabaa annagu runtii madaxweynaha rajo weynaan ka qabnaa waxaadna ogtihiin meel kastoo soomaaliya ka mida in looga bannaan baxo madaxweynayaashii horena baarlamaanku haddou doorto si waa la iska galba jira laakiin waxaad ogtihiin 3 maalmood inay isdaba joog ahayd marka arrintaas madaxweynuhuna inuu ku ceeboobo ma rabno soomaaliyana inay ku hingowdo ma rabno arrintaasna runtii waxaa lafdhabar u ah laga bilaabo saacaddan markaan soo dhoweyntiina aragnay madaxweynihii waa gacantaa laydiin gelsha waxaad dhahdiin ayaana referency u ah madaxweynaha puntland runtii waxaan uga mahad celinaa asigana shacabkii inuu mideeyey isku haayey maanta puntland ay midaysan tahay sidii aan ku arki jira ay tahay oo maanta aynan lahayn mataqaanaa markuu xilka ka degi tago amba dib loo dooro tago idoo midaysan haddana inay mataqaanaa halkii kasii soconayso aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsan yahay salaad cali jeelle haddana waktigoo yar dadkii waxaan ku soo dhawaynayaa boqor burhaan boqor muuse falyatafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماكو مدحوينها دولة دولة بنتلاند iyo mudadiisa mudane cabdiweli caligaas cabdiweli maxamed caligaas mas-uuliyiinta labada gole ee dowladda federaalka iyo dowladda puntland salaadiinta waxgaradka
dhammaan dhallinyarada bahda saxaafadda culimaa diinka ciidamada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan ka bacdi walaalayaal mudane madaxweyne waxaan halkan ka odhan lahaa ikhyaartii halkan ka hadashay ayaa tiri waa garan kadhaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan doorashadaadii iyo dhismihii dowladdan federaalka taageeradii iyo kalsoonidii iyo jeclaantay u qabeen waxaan filayaa sanad wax yar ka dhiman yihiin ayaama ka dhiman yihiin ayaa ka soo wareegtay sidii iyo si ka badan ayay taageeradii iyo kalsoonidii iyo jeclaantii meeshii meel ka siisaadan ayay ka maraysaa indhahaga ayaadna ku aragtay intii muddadii koobnayd oo dhowrka cisho ahayd aad joogtay puntland maantana waxaan filayaa reer qardho iyagoo rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel aan loo kala harin ayay ku soo dhaweeyeen aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay imaatankaaga waxaan leenahay soo dhawow waddankaagii dadkaagii aada madaxweynaha u ahayd oo soomaali oo dhinac daraf ilaa daraf raas kamboni ilaa iyo raas casayr ku taageeray ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba kugu soo dhaweynayna sidaad la socotaan mudane madaxweyne xorriyadda soomaaliya waxaa loo soo maray dhib weyn waxaa loo soo maray dhiig haliyeeyo iyo waxgarad soomaaliyeed inuu ku daato waxaa loola dagaalamay gumaystayaashii waddankan soomaaliya muddada dheer soo gumaysanayay qarannimadii iyo jiritaankii soomaaliya muddo dhowr iyo 20 sano ayuu mugdi galay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay nasiibkaaguna ku siiyey inaad madaxweynihii labaad oo markii laga baxay dowladihii gumeel gaarka ahayd inaad noqotid waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey ee ka saaray dowladdii kumeel gaarka ahayd soomaaliya ee isagii madaxweyne sheekh shariif run ahaantii xilku waa qori isu dhiib maanta adiga iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa gacanta ku haya taladii iyo soomaaliya hoggaankeedii run ahaantiina muddadii koobnayd oo aad xilka hayseen wixii aad qabateen oo qarankii soomaaliyeed aad kusoo kordhiseen waa wax markhaanti ma doonta ah waxaan leenahay ilaahay haydin garab garo ilaahay haydin garab garo midnimada soomaaliya iyo wadajirkeedu adduunka oo dhan baad arkaysaan yurub oo dhan baad isu tegaysaa cid waliba waad aragtaan soomaaliya wadajirkeedu maslaxadeeda iyo danteeda ku jira waxaan jeclahay insha allah biidni illahi kariim inay noqoto soomaaliya oo qarankeedii iyo jiritaankeedii iyo sharafteedii inay insha allah ifyaalaha muuqda insha allah in la gaaro oo inagoo nool oo fiyo oo caafimaad qabna inaynu la kulanno soomaaliya halkan iyo meel kasii wanaagsan gaadha insha allah runtii dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadaba waxaa la gudboon waddankani wuxuu u baahan yahay dib heshiisiin inay noqdaan furihii iyo dadkii miftaaxa u noqon lahaa dib heshiisiinta dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan u soo jeedinayaa dib heshiisiinta inay xoogga saadho qarankii soomaaliyeed sidii dib heshiisiin dhaba loogu samayn lahaa
taasina waxay u noqon kadhaa kalsooni iyo muxuu ummadda soomaaliyeed inay insha allahu bismillaahi kariim inay ka boogadhaydaan dhibaatadii iyo burburkii xanuunka badnaa aynu soo marnay shacabka soomaaliyeed waxaa la gudboon inay barbar istaagaan dowladda inay gacan siiyaan inay ka ilaaliyaan wax allaaliyo waxay hagardaamo ku noqon karaa lannahu maslaxaddeenna iyo danteenna baa ku jira waynu aragnay waqti dheer waynu ku jirnay burbur oo magaceenni la waayey iyo sharafteenni inaynu marka taa ka miro dhalino insha allahu bismillaahi kariim aynu gacmaha ku adkaysano inaanan dib u noqon inaan shacabka soomaaliyeed dib u dhac dambe uusan ku dhicin insha allahu bismillaahi kariim shacabka taas ayaan kula dardaarmayaa arrinkaas ayaana runtii ku boorinayaa dowladdana siday xilka u qaadeen oy kitaabka ilaahay ugu dhaarteen inay habeen iyo maalinba ku soo jeedaan sidii ummaddani dhibta uga bixi lahayd jamhuuriyaddii soomaaliya gobolladii soomaaliya 18 gobol ahayd inay gobol walba uu helo xaqiisa inuu helo gobol walba waxa uu u leeyahay insha allahu bismillah xaqa uu leeyahay inuu helo taas waxa weeye madaxweyne sidaad ula dagaalantay corruptionka sidaad ula dagaalantay waxyaalaha dib u dhacaad keeni kara soomaaliya inaad iyadana qorshaha ku darsatid in xuquuqda gobolladu si siman ay u gaadho gobolladu siday u kala baaxad wan yihiin siday u kala muxuu ahay wan yihiin in gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba inay gaadho cadaaladda iyo horumarka iyo mashaariicda waddanka imanaysa madaxweynaha iyo dowladda isaga iyo ra-iisul wasaare khayre arrinka ayaan usoo jeedinayaa dhammaanteen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku boorinayaa shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo inay gacmaha isqabsadaan inay walaalnimadoodii iyo wadajirkoodii iyo sharaftoodii inay soo ceshadaan inay insha allahu bismillaahi kariim ilaahay tala saarsadaan oo ay ku midoobaan xarigga ilaahay cabsida rabbi ilaahay qur-aankiisu ku yidhi wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu tafaraqa iyo kala qaybsanaanta iyo dib u dhaca cidda ama siyaasi ha noqoto ama waxgarad kale ha noqoto cid allaaliyo ciddii ka shaqaynaysaa ha ogaadeen inay marka hore jebiyeen aayaadka qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey oo munasalka ah oo ilaahay inugu amreeyo inaynu xariggiisa ku midowno wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu cid kasta oo tafaruq keenaysa ha ogaato inay arrinkaas ay dhinac madhayn run ahaantii munaasabaddan wixii laga odhan lahaa iyo sidii ay mudnayd wax badan aan ka odhan lahayn waan jeclaa in badan oo aan salaami lahaa sida siyaasi salaad cali jeelle oo saaxiibkaya oo aan isleeyahay waa waxgaradka iyo hormuudka ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa mar labaad sidoo kale inkastoo aan hadda uusan i muuqan tarsan siyaasiyiinta kale waxgaradka golayaasha dowladda oo madaxweynaha la socday iyo hal abuurka sida ciibo oo kale dhammaan waxaan leeyahay soo dhawaada aada iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan rabaa inaan halkan madaxweynaha jamhuuriyadda aan ka guddoonsiiyo hadiyad aan ugu talagalnay oo ah billad maamuus sharaf iyo isaga iyo madaxweynaha dowladda puntland inay soo istaagaan insha allahu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه مدنيال سida sooyaalka fog
boqortooyada daaroodku ku xusan waxaa martida heerka sare sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo loo sameeyaa maamuus waafaqsan anshaxa boqortooyada soomaaliyeed iyadoo la guddoonsiiyo bilad kaydka u gasha hadiyad ka turjumaysa dhaqanka oo ah cimaamad ama shaal iyo faras waxaa madasha lagu maamuusayo laga tiriyaa tixgabaya iyadana sidoo kale waxaan rabaa in hadiyaddii shaalka faraska la guddoonsiiyo usoo dhawow فرسكان مدحوينه دو ماشي ku joog ma go xarg shaash فون hagaaji haya شوف مع عبدوله وتوشي اوه بقر تنا كنت مايدي يفوح شالك ورتو عدول صح هي عدول هلا بارك الله هيا بارك الله بارك الله كما قلنا بعدين ما يدقي بويه فوحي باهري بقر فوحي باهري فوحي كان سلام على الجنة فوحي باهري فوحي بقر مدحوينها وما يدقي سلام بالبقر بقر وحراي ninka waa la duubay ogaada duubay yahay shabaab duubay ninkaas ايش بارك الله ما شاء الله ما يدقي بقر waxa jira ma yidqi iyo fool وين عودي waa mayd kana waa fool فوح كان هو ميدي ميد بل وقفت بالله ما شاء الله ما شاء الله مدحوينها كشوي بقرك سلام هي شعر بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال يا أم هالنغيا بور برهان بور موسى إيو دروينها reer Raxbo iyo reer Kalkaan soo quruxda badan iyo qadadan ajaa'ibka ee meeshaan aadka ugu badan taariikhdan laga sheekeeyey loogu sameeyey hadiyadahan iyo maamuuskan runtii aan u arag wax la mid ah loo sameeyey iyagoo ku sameeyey magaca madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aad iyo aad buu u mahadsan yahay gobolkooda iyo dadweynahooda waa ka mahadnaqaynaa si kaliya labaada runtii soo dhaweyntii maanta qarda ka dhacdayna anoo og caadada iyo dhaqanka ay leedahay maamuusida sharfidda iyo soo dhaweynta siday caado lahayd mooye qarda mid cusubma aad iyo aad baa maanta soo dhaweyntii runtii aanu aad iyo aad ula yaabnay aan kaga mahadnaqaynaa sidoo kale runtii waxaa ii muuqda wanaag iyo niyadsami aada u haysaan madaxweynihiina horaan u sheegay anu maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo aad baan u aqaanaa annagoon dowlad iyo madax midna ahayn ayaan saaxiib ahayn meel la ku wada noolee waxaan garanayaa niyaddiisa waxaan garanayaa wanaaggiisa waxaan garanayaa wadaniyadiisa iyo wadan jacaylkiisa baan runtii ka markhaati kacayaan been ka sheegi waxa aad u soo dhaweyseen waxaa idinka muuqday niyad samidaasi waxay ka turjumaysa rabitaankaasina wuxuu ka turjumaya isaga niyadiisa iyo wanaaggiisa uu ka turjumaya marka isagaa marti noo ah anigu inagu waa isku badannahay marka ma rabo inaan waktiga sii qaado meelo kala sii maraynaa marka isaga ayaan kusoo dhaweynaya in kelmadiisa yidhaahdo madaxweyne soo dhaweyn بسم الله الرحمن الرحيم madaxweyne boqortooyaan iyo marwada qaaliga nuwada ah marwo qodan ciise qodan sariir ciise madaxda golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka wafdiga guud ahaan la socda salaadiinta culamaauddiinka iyo guud ahaan bulshada reer qardo oo halkan sida sharafta le maanta ugu soo dhaweeyey waxaanu ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaah waa mahad leh oo damar walbana ilaah u mahadcelinaa ah waxaan u mahadcelinayaa mar kale madaxweynaheena cabdiweli maxaan ku dhahdaa maxamed cali gaas iyo boqor burhaan iyo guddoomiyaha gobolka oo runtii si sharaf leh oo wanaagsan halkan ugu soo dhaweeyey iyo shacabweynaha reer qardo oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay aan aad iyo aad kaga mahadcelinayo waktigiina qaaliga inaad siiseen oo sida kal iyo labaad kale oo aad ugu soo dhaweyseen iyadoo weliba cadceed adag oo qorax ay jirto aad iyo aad kaga mahadcelinaya kulligood waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo nabadoon xasan mire araale oo dhowr casho ka hor geeriyooday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisa jannadiisii eheladiisii iyo asxaabtiisiina ka sii samriyo iimaan waxaan rabaa hal arrin inaan xuso laba arrin waa ilaahdo inaan xuso midda hore waxay tahay boqor burhaan keliya ma aha boqor soomaaliyeed iyo boqor puntland ma aha keliya waxaan xasuustaa oo aan xasuusinayaa inuu dhowr jeer socdaallo ku sameeyey meelo kala duwan caalamka ay ka mid ahayd south africa
wixii ka dhacay South Africa waa ogtihiin dadkeenii Soomaaliyeed halkaas u qaxay in lagu dhibaateeyey oo dhibaatooyin tacaddi ah loo geystay cid walbana runtii ay ka aamustay isaguse uu tegay meeshii uu isku dayay inuu xal usoo helo wixii dhib ahaa oo meesha yaaleen uu indhiis kusoo arko wuxuu ka qaban karo ka qabto waa mahadsan tahay boqor hawshaan ilaahay waxaan rabaa inaan xusuusiyo mar kale shalay waxay ahayd sanadguuradii afraad ee madaxweynaheena cabdiweli maxamed cali gaas oo ka soo wareegtay maalintii la doortay waxaan anigu leey ku arkay oo markhaati aan ka noqday meelihii aan tegay kulli iyo jidadkii iyo horumarka ay gaartay magaalada garowe iyo qarbo iyo inta udhaxaysa runtii waxay tahay wax aan ay tahay kulligeena ku wada ammaano inta badan bini aadam baan nahay waxaa laga yaabaa inaan rabno qofkii xil qabta horay inuu wax alla wixii problem ah oo jira inuu xalliyo ilaahay baa horta wax kasta xallin kara laakiin xaaladda iyo duruufahan ku jirno wax sahlan ma aha dowlad dhismaheeda iyo ka shaqaynteedana ma aha wax muddo 1 sano 2 sano ah waa wax waqti dheer u baahan laakiin wax kasta qaanun leeyahay waxaan kusoo arkay anoo weli tegin meeshii ahayd boosaaso waxaan leeyahay kusoo arkay horumarka ay gaartay inta isagu uu maamulka idin hayay marka waa in lagu mahadceliyo in loo mahadceliyo laguna xasuusto lana ogaado waa wax loo baahan yahay wey waxaan rabaa inaan halkan uga yeero xildhibaanada matala deegaanka karkaar oo aan oran karo xildhibaan maas iyo caysane waa yarkaagiin maasha allah qaar caysane labadan waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii aan hayay mas-uuliyadda inay gacan siiyeen oo aan rabo inaan idiin sheego hawshii iyo wixii aad soo dusteen sidii ay kaga soo qaadeen ballantii inay u fuliyeen waxaan iyaga hadda u magacaabayaa bacdama aan joogno degaankoodii sidaasoo kale degaanadii aan tegay hadda fursad uma helin inaan sheego xildhibaanadii sharafta lahaa oo ka soo jeeday degaanadaas oo laga soo doortay inaan ummadda u sheego hawshii ay qabteen iyo sidii ay noola shaqeeyeen xukuumadda noola shaqeeyeen mar walbana u garab taagnaayeen waa ku mahadsan yihin iyagana haddaan fursad helana hadda inta ka dambaysana waa sheegi maxaa yeelay waxaan idhahnaa mar walba dowladdan idinkaa iska leh waa inaan idinku soo celino aan siino report aan siino wax alla wixii aan qabanay iyo cidda nala shaqaysay si aad u ogaataan ama dadka aad u kala ogaataan qofka wax qabtay iyo qofka aan waxba qaban waa dhab dowladdaani waa dowlad shacab ah waxay u xoog siiban doontaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo inaad idinka electionka ama doorashada soo socota aad gacantiina ku bixisaan codadkiina macnaheedu waxay tahay inaad ogaataan dadka dowladda dhisaya oo horumarkeeda iyo wanaaggeeda ka shaqeynaya iyo dadka dibindaabyeynaya oo lagu haya inaad ogaataan weeye waxaan idiin sheegayaa sanadkan 2018 wuxuu noo noqon doonaa sanadkii sidii uu boqorku u sheegay dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo ay aasaas u yihiin ama ay hogaaminayaan salaadiinta Soomaaliyeed iyo dhaqankooda ay hogaaminayaan wuxuu kaloo noqon doonaa sanadkan sanad shaqo badan oo horumar leh oo aan ka shaqeyno horumar aan ka shaqeyno horumarkaas oo ah inaan jidadkii dhisno burburay 27 sano cid walba oo saaxiibo ah oo caalamkaan la kaashano idinkuna aad qayb ka qaataan oo aad bixisaan canshuurihii iyo wixii idinku soo aada maxaa yeelay dowlad hadda aragtaan shaqeynaysa oo ummaddeeda u adeegaysa shacabkeeda bixiya kharashaadkeeda canshuuraheeda bixiya iyo kalsoonideeda siiya meel walba aan u galno waxaan u diyaarsanahay inaan sanadkan noqdo sanadkii aan ku dhisi lahayn jidad badan oo hadda naga burbursan waxaan doonaynaa oo kale bacdama abaarada nagu soo mareen in aan ka shaqeyno sanadkan ceelal badan inaan qorno oo aan raadino inaan dadka siino biyo nadiif ah inaan siino
waa bilaabayna insha allah qorshaheeduna waa wadnay waana kasoo shaqeynayna tobankii bood ugu dambeysay wixii hadda ka dambeeyana waxaan rabnaa inaan galno implementationkii ama dhaqangelinteeda inaan galno waxaa kale oo aan bilaabaynaa oo runtii 27 sano hadda ugu dambeysay naga maqnaa inaan furno dugsiyo farsamo dalkeena waa burburay burbur xun uu soo galay waxaa loo baahan yahay dib u dhisno cid kale oo shisheeyaa noo dhismayso annaga inaan dhisano wey annaga inaan dhisannana aqoontii baa loo baahan yahay saas darteed waxaan dhisaynaa iskoollo fara badan oo farsamo ah oo laga barto wax kasta oo engineering ah ama technology ah ama dhismo ah ama koronto ah ama electronic ah nooc walba beero ah xoolo ah dhakhaatiir dhakhtarnimo ama nursing leh kalkaaliyo leh inaan bilaabno inaan dhisno oo degmooyin iyo gobollada dalka guud ahaan meel kasta intaan gaari karno aan gaarno ugu dambeyntii waxaan rabnaa inaan dhiirigelinno mashaariic maalgelin oo aan ugu yeelin caalamka inay noo yimaadaan oo ay maalgashadaan iyo dadkeena dibadaha jira oo diaspora ah inay yimaadaan oo ay maalgashadaan dalka si loo abuuro shaqooyin shaqo abuur loo sameeyo taas waxaa ka horeysa inaan ka shaqeyno amniga oo aan arko waxyaabaha horumarka aad ku gaarteen haddaad tihiin reer puntland ay tahay ammaanka iyo nabadgelyada oo ay tahay wax laydinkaga dayo qof walba oo soomaaliyeedna waa inuu ka shaqeeyo nabadgelyo maxaa yeelay markii nabad la helo yaa ummaddu nolol heshaa saas darteed si aan adduunka u raacno kaalaya noo imaado oo maalgashada dalkan khayraadkiisa iyo waxa aan haysano waa inaan annaga aan muujino kow inaan leenahay hufnaan oo aynan ummadeenna aynan maxadaynin oo aan si hufan ugu shaqaynayno labo inaan u keenno meel ammaana ay ka shaqayn karaan oo amni leh inaan keenno walaalayaal hadalkii waa beriyey waqtigu waa sii gabagabo waxaan mar kale idin leeyahay aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo sharafta badan oo walaaltinimada leh oo kashay iyo laabta leh oo aad noo soo dhaweyseen insha allah sida uu sheegay boqorka iyo sida maanta yidhi waa isku dayeynaa inaan joogno 2 casho hadduu ilaahay maanta ay ka bilaabato waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa halkan inaan ku wareejiyo boqor burhaan oo noo duceynayo maasha allah madaxweyne waa mahadsan tahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa booqashadaada adiga iyo mas-uuliyiinta kula socda ballanqaadkaagana waa ku kalsoonnahay qalbi wanaaggaaga iyo soomaalinimada iyo sidaad u jeceshaad inaad u meelmarisid insha allah bismi illaahi kariim dib u heshiisiinta iyo mashaariicda waxa ugu weyn runtii waad aragtay meelahan puntland waddooyinka waxaan filayaa waddooyinka hadda muhimka ah oo aan rajaynayno insha allahu inaad indhahaagana aad ku aragtid waddada madaxweyne cabdiweli uu dhagax dhigay oo bayla ilaa xaafuun ilaa qardho isku xidha waddada kala bayr ilaa iyo caluula waddooyinka kale dhulka aan waddooyinka lahayn sida waddada gobolka gedo oo kaleeto waddada hobyo iyo isku xidha muxuu ahaye deegaanada ilaa laamiga waddooyinka intaan anagu ku fillayn wax badan baa laga qabtay laakiin kaabayaasha dhaqaalaha kuwaasa ugu horreeya waan rajaynaynaa insha allahu iyo meelaha kaleeto aanan hadda xasuusnayn intaba inaad wax ka qaban doontid ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu ku xifdiyo ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu ku gaarsiiyo hamigaaga iyo fekerkaaga soomaalinimada in ilaahay uu kugu guuleeyo ilaahay waxaan shacabka soomaaliyeed u weydiinayaa oo ilaahay ka baryaynaa inuu amni iyo istiqraar iyo horumar iyo qarannimadeeni iyo sharafteeni dib inoogu soo celiyo ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahu bogayaga burcdiisu mari ilaahu khilaafka naga dhex saar ilaahu dhibta iyo mushkilada aanu ku jirno rabbi waqti dheer baanu kusoo jirnay ilaahu naga badbaadi rabbi ilaahu waan kuu soo noqonnay waa kuu toobad keennay ilaahu waan kuu toobad keennay ilaahu gafkayga waanu qirannay ilaahu waa kuu toobad keennay rabbi dhibta naga saar ilaahu abaarta naga saar ilaahu qaraxa iyo xabadda iyo dhibta rabbi naga saar ilaahu walaalo isjecel oo ilaahay xarigiisa ku midooba oo ku walaalooba ilaahu naga dhig ilaahu saasaanu kaa barinay madaxweynaha dowladkana waxaan leeyahay allah guuleeya isagana واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه